samaysnaa idinkuna baraf ma tiidin waa inay xanuunka aanu dareemayno kala dareemaan ilaa laga arko wariye shabaab xabad ku dhuftay wariye shabaab ilaa laga arko xabadda naga daymaya war iska dhiciyo doqonta oo aan aragno oo aan ka dul qudbeeyo wariye Soomaaliyeed oo ugus dilay cali dheer hal la joogto bilaa calaykum maalin kasta waa dilin anagu wadi mayno allah u naxariista wadi mayno tayimaadeen asoo gurigiisa hor fadhiya xalabaan tagay saq dhexe bay xabada ku dhufteen tartiib ay inta u baxeen ay raaceen ay iska baxeen ciidamada ammaanka waxaan leeyahay u dul qaadan mayno waa la dilay waana baxsaday naga waxaan rabnaa waa la dilay asagiina waa la dilay ama intuusan dilin baa la dilaan rabnaa ana ku hadlaya magacayga magaca maayarka caasimadda wariyayaalow cid idin maqani ma jirto cadowga iska celiya nin walba madaxaada meerax ku duubo maalin walbaan dul taaganahay wariye la dilay anu wariyana kasa ku yana afayeen gobolka ahay saxaafadan ka dhaximid aan iska dhicina doqonta dhagxa kama samaysna bullet proof maaha shabaab bullet proof maaha wallahi baan ku dhaartay waa naga tabaririin hal iyo laba hadan ka dilna way didaya way cararaya doqonta la iska dhacay allah u naxariisto waa nagu waajib waxaan rabaa inaan maanta dama iraado shabaaba wariye dilaan rabaa inaan iraado hal la dilo shabaab hal la dilo wallahi tan isxaan noo sameeyeen wax danaysan naga lahayn inaan sheegnay naga rabaan laba maalmood oo saxaafada ku jiraan oo wariye dilaan la iraado dhagxa ma ahan hal la dilo shabaab waxaa kordhay dadka ku waxyeeloobay qaraxii khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca u geystay shilin gelinkii dambe isla markaana ka dhexdhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir kaas oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan mas'uuliyiin qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa mas'uuliyiinta ka tirsan gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in loo maleynayo inay haweeney isku qarxisay hase yeeshee hay'adaha amniga iyo mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ay baaritaano ku sameynayaan dadka ku dhintay qaraxaas ayaa waxa kamid ahaa gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Sabax Cabdilaahi Azad gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi gudoomiyaha degmada Shangaani Sahraad Saad Sheekh Maxamed oo u geeriyootay xalay dhaawac ka soo gaaray qaraxa agaasimaha nadaafada Cabdifataax Umar Xalane agaasimaha shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Cabdilaahi Dheere iyo la taliyaha dhanka sharciga ee gobolka Banaadir Xasan Sabri sidoo kale qaraxaasi waxa dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo xubno kale kuwaas oo maanta la filayo in loo qaado caafimaad dalka dibadiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay wadaan baaritaan ku aadan falka dhacay isla markaana ay faahfaahin dib ka soo sheegi doonaan al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas iyaga oo warar ku qoreen baraha ay ku leeyeen internet ku sheegay in weerarkaasi qaraxa ah ay la damacsanaayeen wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan kaas oo saacado ka hor gudaha xarunta kulan kula qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso